waxaa mahadsan dhammaan walaalaha goobta jooga. si gaar ah waxaan u salaamayaa uguna mahadcelinayaa wasiirada iyo ku-xigeenada iyo duqa magaalada iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee dowladda ka jooga xafladan ama munaasabadan, hablaha iyo hooyooyinka, dhalinyarada, bahda saxaafada, culimada diinka, dhammaantiin waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaanta kadib waa ka mahadcelinayaa xafladan soo dhoweynta ah. runtiina waxaan isleeyahay waxyaalo fara badan oo aad ku hadasheen oo ammaan ah, aniga naftayda waxaan isleeyahay ma mudni mana ihi. idinkuna wanaag iyo walaalnimaad cabirteen, xaqiiqadaydana anaa og, ilaahayna waa ogi. marka wixii qarsoon allah noo dhaaf. idinkuna waa mahadsantihiin, jazaakum allahu khayran. ii saamaxa wax yar daqiiqado in aan wax yaroo taariikha idinla wadaago. 10kii sano u dambeysay 2009kii ayaan magaalada muqdisho imid. waxaan u imid inaan ka qayb galo shir ay lahaayeen culimmada Soomaaliyeed. waa xilligii dowladdii Shariif lagu soo dhisay Djibouti oo ay magaalada muqdisho timi. shirkaas go'aamo iyo bayaan baa ka soo baxay, culimmada Soomaaliyeed soo saareen. xaalad adag baa lagu jiray, xaalad kala guuraa lagu jiray, xaalad ninkii joogay baa garanaya aad iyo aad halis u ah baa lagu jiray. shirkii culimmadu markuu dhammaaday, aniga iyo 5 kaloo culimmada ka mid ah ayaa waxaa naloo diray 2 urur ee wadaadada ahaa ee hubaysnaa oo markaa ay dowladdii Shariif iska soo horjeedeen. ururkii Xisbul Islaam iyo madaxdiisii oo markaa uu hogaaminayay Dr. Cumar Imaan, iyo ururka Al-Shabaab oo uu oday markaa u ahaa Axmed Godane. labadooda waa la fadhiisanay. labadoodaba waxaan ka dalbannoon ka codsannay, xaaladdu waa isbeddeshay. dadkii shalay aad wax wada wadeen maanta inaad waddanka dhexdiisa ku dagaalantaan sax maaha. heshiis iyo wada hadal fura. ummaddana 10 sano 20 sano dambe oo dagaal iyo dhib ah inay sii gasho sabab ha u noqonina. qolyihii Xisbul Islaam warcad maynana siinin. qoladii Al-Shabaab waa masalo taariikha, hadda ka hor meelo badan kama sheegin. waa la fadhiisannay. Axmed Godane ayaa oday u ahaa. fadhi dheer baan la qaadanay, duhurkii ilaa cishahan la fadhinay. wax walba waa naga diideen. markay naga diideenna waxaan u tilmaannay, odayaal baa ila socday, Sheekh Cali Warsame, Macallin Maxamuud allah u naxariisto waa dhintay, Sheekh Nuur Cali Jaamac oo maanta jooga magaalada Muqdisho, muxuu ahaayey raggaasaan ahayn. markay naga diideen oo ay yidhaahdeen wadaadahan wax ogeyn baa tihiin, waaqicana waa ka dhacsantihiin. 4,000 oo waxaa joogay Ugandhiyaana magaalada Muqdisho. 4,000na waxay dhaheen gelin baan eryeynaa. annaguna waxaan ku nidhi ma eryi kartaane 4,000 horta 20,000 iyo 30,000 bay ku imaan doonaan. kulankaas markay wax walba naga diideen waxaan ku nidhi mushkiladu way sii siyaadi doontaa, idinkii Xisbul Islaamna waad islayn doontaan, ummadada qaybteeda kalena waa islayn doontaan, ciidamadan hadda aad leediin waan saaraynaana way soo siyaadi doonaan. marka dambana waxaad isu rogi doontaan idinkii ummadda inteeda kale inaad noqotaan. culimmadii saasay u jeediyeen, waana ka soo tagnay. maalinkii labaad baan aniga keligay ku noqday. maalinka labaad waxaan kala niqaashayo masaa'il diini ah
oo ku saabsan gaalaysiinta muslimiinta xaqdarro lagu gaalaysiinayo iyo dhiiggooda la bannaysanayo. niqaash dheer baan kala galay axmed godane, nin la yidhaahdo fu'aad shongole, nin la yidhaahdo mahad karatay, kulligood way fadhiyeen. waxaan kala niqaashayaa dhiigga soomaalida iyo muslimku inuu xaaraan yahay, gaalaysiintan ay dhiigga ku bannaysanayaanna inuu xaaraan yahay. ayaguna dood dheer baana dhex martay, keligay baana markaa maalinkii labaad baan ku noqday. oo masale taariikha waay, 10 sano ka hor waay. waxaa dhacday markaa kadib inaan bilaabay muxaadaraad magaalada muqdisho aan afkaartaa kaga digayo. masaajidka abu hurayra baa waxaan ku qabtay, ciddii joogtay baa joogtay, muxaadaro aan kaga hadlahayo dhiigga muslimka iyo gaalaysiinta. muxaadaradii labaad waxaan ku qabtay suuqa xoolaha. suuqa xoolaha muxaadaradaan ku qabtay, halis baan gallay. waardiyaan watay, muxuu ahay maxaakimta qaar ka mida ay waardiyeynayey inay nallaayaan bay qarka u istaageen, silix baan ku fakannay. muxaadaradii saddexaad waxaan ka dhigay magaalada xaafadda madiina, meesha la yidhaahdo saldhigga galbeed, meel bannaan ayaan ku qabtay. halkaa muxaadaradii iyadoo socota, saldhig baa noo dhowaa. intayna dhaafeen ayagoo hubaysan oy saldhiggii xabada ku rideen baa madaafiic nalagu soo riday. dadkii way isjiidheen, wax carara, carruurtii, dumarkii, halis baa la galay. waxay ahayd 10 sano ka hor bay ahayd, magaalada muqdishoy ahayd, markhaati baa laga wada ah. waxaan raacay wafdigii qatar aaday xilligaa isaga ah, oo odayaal iyo culimo isugu jiray, oo ay ka mid ahaayeen odaygii la dhihi jiray muxuu ahaayey nabadoon xasan, muxuu ahaayey xaag, inuu nool yahaan u malaynayaa. waxaa ka mid ahaa axmed diiriye, nabadoon axmed diiriye, allah u naxariisto, inuu dhintaan u malaynayaa. qatar wafdigii aaday baan ka mid ah. waan soo noqday, magaalada nairobi baan ku noqday. muxaadaraad musalsal ah oo aad u badan oo dhiigga iyo gaalaysiinta ku saabsan baan ka galay. kadib munaasabad kasta oo ummadda lagu qarxiyo ama dhib loogu geysto, munaasabad kasta waxaan kaga hadli jiray khudbado iyo muxaadaraad baan kaga hadli jiray. wixii aan kari karnana ummadda waa ula soo gurmanaynay. tii u dambaysay Zobe oo midda hadda aad xusuusataan ah, waxaan ka galay khudab fara badan. wixii ilaahay uuna waafajiyeyna ummaddaan u keenno oo u soo ururinay. xataa waxaa dhacday in anigoo jooga magaalada Nairobi, intii uu noolaa axmed godane, waa qadiyad hadda ka hor cidna aana u sheegin, erguu ii soo diray. wuxuu igu yidhi waxaan farriin kaaga wadaa, nin buu ii soo diray, waxaan farriin kaaga wadaa ninkii odayga ahaa, waxaana uu rabaa inaad wada hadashaan ood heshiisaan. waxaan ku yidhi maxaan ku heshiinaynaa? wuxuu yidhi wuxuu rabaa inaad aduguna radinta ka daysood ka aamusto, ayaguna ku nabadgeliyaan. waxaan ku yidhi taa macnaheedu waxa weeye lafahaaga ilaasho. dal iyo diin iyo nimankan kadaati waxaan isku hayno naftayda ma ah. naftayda goortii ilaahay qadaray bay bixi, laakiin dal iyo diin baan isku haynaaye. hadday diyaaru yihiin inaan ka wada hadalloon ka niqaashno, meeshay rabaan baan ugu tegayaa. laakiin hadday tahay lafahaaga ilaasho, wax nin weyn loola yimaado ma aha baan ku yidhi. intaasoo dhan markay dhacday, magaalada Nairobi waa la ogaa. waxaa jirtay salaadaha habeenku hadduu soo galo, cishe iyo maqrib iyo salaada subax, waqti aanaan masaajidda ku tukan jirin baana soo martay. hanjabaad iyo handadaad iyo halis aan dareemayno. intaasoo dhan markayna soo martay oo intaasoo halis aan soo galo 10kii sano u dambaysay, waxaa wax la yaab la ah, ninka maanta leh fatwadii sheekh umal ayaa carruurtii ku agowwaday waa muqdisho joogta oo raba muxaadara in loo jeediyo. taariikhda in laga been sheego sax maaha. intaa waa mawaaqif wada caam oo markhaati lahoo la wada joogay wey. haddii aan ummad Soomaaliyeed dhiiggeeda daadinayo ama xalaalaynayo,
markay dhibaatadu gaadho uma soo gurmadeen haddaan qabo in la daadiyana xoolo uma soo ururiyeen dareen diineed weeye mas-uuliyad weeye culimmadu ay qabto waajib diiniya waay intaa waxaan idin taariikhdaasi wakhtiga idinkaga lumiyey علشان inaad ogaataan xaqiiqada inaad ogaataan ummad badan oo been lagu lugooyo waxaan jirin loo sheegayna inay waxa jira ay ogaato intaas weeye